السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan maanta wareysanaynaa Professor Axmed Omar aqoonyahan deegan kamid ah jaaliyada reer Canada ahna madaxda sare ee ururka USP isagoo rabo inuu ka hadlo arrimo ayaamaha kan ugu ku ah magaalada Boorame halkaas oo wariyay Axmed Xajar oo u shaqeynayay Somali Channel TV lagu xiray bilaa dambi oo arrintiisuna ay hadda tahay iska hay marka Axmed baan waxaan doonayaa fikirkiisa aan arrimaha ku aadan aan ka qaadan Professor Axmed maxaad ka leedahay arrintan ninka wariyaha ku xiran magaalada Boorame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا ugu horeysa balmada Soomaaliyeed baan salaamaya gaar ahaan ummadda reer Awdal marka waxaan leeyahay bal horta wariyaha Ali Xajar waxaan u aragnaa horta in lagu haysto gardaro iyo dambi aan jirin loo haysto oo xadgudub ay tahay xarigiisa iyo hawsha lagu haystaaba waayo waxba uu kama u gelin dambi ummadaasi waana gardaro waxaan ka sheegaynaa bal maamulka la magac baxay aan bay isku sheegaya Somaliland ma isaga fidno ummadda ku abuuraya oo khalkhal gelinaya geeska oo dalka gelinaya khalkhal oo gobolka Awdal dhibaato iyo hawl ka abuuraya sidee baan u aragnaa markaa inuu isagu yahay fidno walaha abuuraya dhibaatada ka dhacda gobolkaasi Awdal wariyaha ku xiran Saylana sida aanu ognahay wuxuu xaqiijinayay dhacdooyinka ka dhaca guud ahaan gobolka aba deegaanka Sayla marka la xidhay waxa dhacay kulli falal ay ciidamada badda ee Somaliland sheeganaya ay ka wadeen dekada Sayla bay ka wadeen oo nin ganacsata oo hawshiisii gaas meesha kala soo degay baa laga boobay isaguna warkaas uu duulayay marka ma burcad baan nahay oo anagu waxbaan xaraynay hal sheegin baa lagu haysta marka Ali Xajar sidaas lagu haysta waxaan leenahay waa gardar arrinkaas waayo journalism-ku adduunyada wuxuu sheegaa dhacdooyinka adduunka ka dhaca kolka ummadiis qabsatana marxaati waxa loo doontaa iyaga dhacdadii runtahay waayo iyagu waxay u ururiyaan ummad kastaba wixii dhacda ee wanaag iyo xumaba ah iyaga kaydiya marka xumaanta laga waday Sayla ummadda Soomaaliyeed ama gaar ahaan ummadda reer Awdal iyo deegaanka Sayla ummadda ku nool oo waxa inay ogaadaan waxa lagu dhacay dushooda ee qalad marka hadduu Ali Xajar xaqiijinayay sharciguna waafaqsan yahay waxa lagu haysto ma garanayno marka waxaan uga digaynaa dalka qolada Somaliland sheeganaysa in si dhaqso loo sii daayo waana ahayn adduunyada waana idin daawanaynaa wixii idin aan la nimaadno ee adduunyada aan la nimaadno inaad idinku khalkhal wadaan adduunyada waan u sheegaynaa waana tusaynaa xaqdaraduna ma soconayso ninka xorriyadiisa oo taama haloo sii daayo si degdega oo wanaaga iyo asluubta iyo nabadda hala dhawo baan anagu kulli ku talinay Professor Axmed maadaama ururka xuquuqul insaanka wax badan iyo ay ka hadleen journalistiyaasha Soomaaliyeed oo dhibaatada loo geysanayo gudaha dalka Soomaaliya ka xisbi ahaan maxay kula tahay in aad ka caawin kartaan oo aad qoraallo iyo wax aad ku qori kartaan si arrintiisa ay u gaarto ururka xuquuqul insaanka arrintan ku guda jirtiin arrintaas waan ku guda jirnaa waana wadnaa xuquuqul insaanka iyo adduunka journalism ururka adduunyada journalism intaba waan u gudbinaynaa qaarkood waan u gudbinayba marka insha Allah taala waxaan jecelnahay haddii alla yiraahdo sida ugu dhaqso badan in jawaab loo siiyo maamulkaas ku magacaabay Somaliland maxaad faraysaa salaadiinta reer Boorama oo ayaga arrinta marxaatu ah oo dadka gudihiisa jooga iyo shacabka reer Boorama oo ayaguba dhalinyaro badan oo journalistiyaal xagga ay joogaan maxaad ku burin arrinta la kaga faa'iideysanayo wararkeeda horta salaadiinta iyo siyaasiyiinta iyo ummadda reer Awdal ee wanaaga iyo nabadda jecel intaba waxaan ugu baaqayaa
inay ilaaliyaan bini'aadanka sharaftiisa oo lagu dulmin hoostooda qof bini'aadanaba sideedaba gaar ahaanna inaan lagu dulmin dadkooda iyo aqoontooda iyo caqligooda dadka ka dhashay inay ilaaliyaan oo xuquuqda ilaaliyaan oo bini'aadanimada ilaaliyaan oo dadnimada ilaaliyaan iskuna taagaan in xaqdarrada la dagaalamaan ay socdiyaan oo ka hadlaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka hadlaan iyaga qudoodu arrinkaasi oo adduunyadu tushaan arrimaha sharciyada ee meesha yaalana ay eegaan على حجرنا نعيشه عليان إن شاء الله تعالى عيشه عليان حقوق ديسي يمرح بنانيس وطعم ديال بعض ما أحسنت هاي بروفيسور أحمد عمر انت استغفر الله فينا ورسقنا عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.